rasuulku wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qof waalidkiisa wax u gudi karaa ma jiro. waxa la dhihi jiray hooyada ama waalidka haddii aad dhabarka ku qaado oo 7 mar aad xajka ku geyso oo aad soo tawaafiso xataa ma gudin waxyaabaha iyo xaqa ay kugu leeyihiin. hal maalin ama hal habeen oo hooyada qorax ay ka qarisay ma u suura geli karto oo ma u dhigmayso. hal habeen oo hurdo ay ka soo naxdaysan u dhigmayn. war iska ilaaliya qaasatan hooyada. hooyo iyo aabba waa kala xaq badan yihiin. hooya xaq badan nin ayaa rasuulka u yimid wuxuu dhahay rasuulkii Allah man axaqu nnaas bixusni suhbati qof aan la saaxiibo oo aan wanaag u sameeya oo xaqnimo badan dadka. rasuulku wuxuu yiri ummuka hooyada. intaa ka gadaal wuxuu dhahay thumma man yaa ku xiga rasuulkii Allah. nabigu wuxuu yiri ummuka hooyada. mar saddexaad ayuu ku celiyay ninkii. rasuulku wuxuu dhahay ummuka hooyada. intaa ka gadaal mar afaraadkii ayaa la yiri abuuka oo ama abaaka. aabaha ayaa ku xiga. hooyo 3 mar ayay ka xaq badan tahay aabaha. waayo hooyo dhibaato fara badan ayay soo martay. hooyada in aad iyo aad loo ixtiraamo oo loo wanaajiyo ayaa qiimo iyo wanaag badan. hooyada rasuulku wuxuu tilmaamay aljannatu taxta aqdaami al-ummahaat. hooyooyinka lugahooda hoosteeda inay tahay. hadday kaaga kacan waad gelaysaa, haddaynan kaaga kicinna geli maysid. inkaarta ay habaarsamaan ha layska ilaaliyo. ducada ay ducaynayaanna ha laga faa'iidaysto qaasatan hooyada. nin Jureej la yiraahdo aad u cibaado badnaa ayaa maalin tukanaya la yiri. hooyadiis ayaa u timid nin cibaado badan ayuu ahaa. markaasay tiri yaa Jureejow lama hadlin oo qalbiga ayuu iska yiri yaa rabbi ummi wa salaati. ilaahay hooyaday maan ajiiba ma salaadeedan wata ayuu qalbiga iska yiri. salaadiisa ayuu iska qaabilay. yaa Jureej sayidaysa way iska baxday. maalintii labaad ayay hooyo timid asagoo salaadiisa tukanayo xaaladiisa ku taagan ilaa nin cibaado badan ayuu ahaa. Jureejow sayidaysa ayuu isiri yaa rabbi ummi wa salaati. ilaahay salaadayda ma sahooyan ajiiba fa aqbala ala salaati. salaadiisu iska wato iska qaabilay. way iska baxday. maalintii saddexaad ayay timid ilaan waa nin cibaado badan oo sheeko badnayn oo xumaan badnayn oo qayilayn oo sigaar cabayn oo gabdhaha raacayn oo xumaan iyo waxyaabo xaraan iyo qabiil ku dagaalan aan ku dhex jirin salaad ayuu u taagnaa. markaasay tiri yaa Jureej say u dheeysay ayuu qaabili waayay. hooyo waxay tiri ma taqaanaa ilaahay anugayga hadilin ilaa aad ka tusiso gabdhaha dhilooyinka wajigooda على وجوه المومسات. gabdhaha xumaanta ka shaqaysta wajigooda ilaa aad ka tusiso ilaahay yow hadilin. gabar aad loo miidaasho oo qurux badan oo reer bani Israa'iil ah oo la cajaa'ib badan quruxdeeda ayaa tiri Jureej haddaad la yaabteen cibaadadiisa anaa soo fidnaynaaye ii dhaafa. intay isqurxisay ay iscarsisay Jureej aaday. dhinac walba ayay ka tagtaa waana ka leexdaa waa ka jeestaa. meesha u jeestay ka aadaa markay ogaatay inaysan waxba ka qaadi karin anugaan xaaladiisa ay adag tahay ayaa waxay isku dhiibtay isu makanisay wiil qowsaar ah oo Jureej meesha uu seexanayo soo seexan jiray oo ari jira ah. ninkii ay isku dhigtay kiibaa ku dhaco jimaaco uur u qaaday. markay dhashayna dadkii hore waxay ahaan jireen marka ay qof laga zinaysto waxaa la tumi jiray ninkii markaa ka zinaystay. wiil markay dhashay u yimideen waabtii uu ku jiray ku dumiyeen. waa garaaceen waa tumeen dib ayay gaarsiiyeen. wuxuu dhahay sha'nuku maxay xaaladiinu tahay. waxay dhaheen waxaad ka zinaysatay gabadhii macruufka ah